sarkaal sare oo ka tirsan difaaca Mareykanka ayaa sheegay in ciidamada dhulka ee Ruushka ay u muuqdaan in ay qodanayaan oo ay dhiganayaan fariisimo difaac 15 ilaa 20 kiiloomitir meel ka baxsan Kiev iyagoo sii wada in ay wax yar oo horumar ah u dhaqaaqaan dhanka bartamaha magaalada waxa ay qodanayaan dhulka waxayna ka samaysanayaan dhufaysyo difaac ayuu yiri sarkaalka marka ma ahan in aysan hore u socon dhab ahaantii hadda iskuma dayayaan inay hore u socdaan dhanka bariga Kiev ciidamada Ukraine ayaa awooday inay sii fogeeyaan askarta Ruushka sarkaalku wuxuu sheegay isagoo ku andacoonay in ciidamada Ruushka oo 20 ilaa 30 kiiloomitir u jiray bariga iyo waqooyiga Kiev ay hadda u jiraan 55 kiiloomitir sarkaalka ayaa sheegay in taa bedelkeeda ciidamada Ruushka ay xoog iyo dadaal dheeri ah ku bixinayaan bariga Donbas gaar ahaan magaalooyinka Luhansk iyo Donetsk madaxweynaha Ukraine ayaa ugu baaqay NATO inay siiso dalkiisa taageero wax ku ool ah oo aan xadidneyn oo ay ku jiraan hub kasta oo ay u baahan yihiin si ay uga hortagaan duulaanka Ruushka isagoo ka hadlayay habeen hore shirka NATO iyo G7 ee Brussels Zelensky wuxuu sheegay in Ukraine ay rajaynayso talaabooyin halis ah oo ka yimaada galbeedka iyo xulafadooda waxaan weydiisanaynaa in NATO ay cadeyso in ay si buuxda u caawin doonto Ukraine si ay ugu guuleysato dagaalkan ka nadiifinta dhulkeena kuwa soo duulay iyo soo celinta nabadda Ukraine ayuu yiri isagoo ka codsanaya wadamada reer galbeedka inay u midoobaan Ruushka waxa waan arki doonaa cidda saaxiib noo ah cidda lamaana noo ah iyo cidda naqiyaantay ayuu ku yidhi khudbad qiiro leh si wada jir ah waa inaan ugu ogolaanin Ruushka inuu nakala jajabiyo NATO iyo EU ama G7 haddaan nahay Zelensky waxa uu xusay in hawada Ukraine aanay weli ka xidhneen diyaaradaha iyo gantaalaha Ruushka iyo in Ukraine aanay helin diyaaradaha dagaalka ama hababka difaaca hawada ee casriga ah ee ay codsatay waxa uu sheegay in Ukraine ay sidoo kale u baahan tahay taangiyo iyo systemka ka hortaga maraakiibta waxay ahayd bil in aan iska difaacno isku dayga na lagu burburinayo dhulka na lagu tirtirayo ayuu yiri laakiin waxaan soconay 6 jeer in ka badan intii cadowgu qorsheeyay balse ciidamada Ruushku waxay burburinayaan magaalooyinkeena dilayaan dadkeeni rayidka ah si aan kala sooc lahayn waxay geysanayaan kufsi haween afduub caruur toogasho qaxooti waxay qabsanayaan kolonyada gargaarka oo ay bilaqaysanayaan ra'iisul wasaare ku-xigeenka Ukraine Mikhailo Fedorov ayaa sheegay in Kiev ay isticmaalayso software aqoonsiga wajiga ah si ay u aqoonsadaan meydadka askarta Ruushka ee lagu dilay dagaalka iyo in ay raadiso qoysaskooda si ay ugu wargeliyaan geeridooda Fedorov ayaa wakaalada wararka ee Reuters u sheegay in Ukraine ay adeegsanayso tiknoolajiyada Clearview Artificial Intelligence oo ah shirkad bixisa software wajiga lagu aqoonsan karo oo fadhigeedu yahay New York si ay u hesho xisaabaadka baraha bulshada ee askarta dhintay maamulka ayaa markaa fariin u diraya qaraabada si ay ugu diyaar garoobaan soo qaadista meydka ayuu yidhi annaga oo ixtiraam u hayna hooyooyinka askartaas dhalay waxaan ku faafinaynaa macluumaadka baraha bulshada si aan ugu yaraan u ogeysiino qoysaska inay ogaadaan inay geeriyoodeen wiilashooda oo ay awood u yeeshaan in ay yimaadaan si ay u qaataan meydadkooda ayuu yiri Fedorov waxa uu diiday in uu cadeeyo tirada meydadka lagu aqoonsaday aqoonsiga wajiga laakiin waxa uu sheegay in boqolleyda shakhsiyaadka la aqoonsaday ee ay qoysasku sheegtaan ay aad in badan wasaaradda difaaca ee Britain ayaa sheegtay in ciidamada Ukraine ay si guul leh u qaadeen weerar rogaal celis ah oo ka dhan ah fariisamaha Ruushka ee magaalooyinka ku yaal duleedka caasimadda Kiev waxaa jirta suurtagalnimo macquul ah in ciidamada Ukraine ay hadda awoodaan in ay ku hareereeyaan cutubyada Ruushka ee Bucha iyo Irpin waxay intaa ku dartay in weeraradan rogaal celiska ah ay u badan tahay in ay carqaladeen doonaan awoodda ciidamada Ruushka in ay dib u abaabulaan oo ay dib u bilaabaan weerarkooda ku wajahan Kiev shixnada ugu horeysa ee xirmada hubka 800 milyan oo dollar ayaa loo rari doonaa Ukraine toddobaadkan mana qaadan doonto waqti dheer in la gaarsiiyo Ukraine sarkaal sare oo ka tirsan gaashaandhigga Mareykanka ayaa yiri sarkaalkan Mareykanka ah oo la hadlayay warfadiyeenada ayaa oo diiday in magaciisa la shaaciyo ma uusan cadeynin nidaamyada lagu dari doono shixnadaha ugu horeeya ee Ukraine balse waxa uu sheegay in mudnaanta la siin doono noocyada hubka difaaca ee horey u isticmaali jireen ciidamada Ukraine sarkaalku wuxuu yiri waxaan durbadiiba isku ururinaynaa saamiyada Mareykanka waxaanan isku diyaarinaynaa inaan u dhoofino halkaas